waftigii uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa u kicitimay jamhuuriyadda Djibouti si ay uga qayb galaan shirka halkaasi ka furmi doona oo loo filayo inuu dhex marayo madaxweynayaasha Soomaaliland iyo Soomaaliya. wufuudan ballaaran ee horkacaya madaxweynaha Soomaaliland oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha golaha guurtida, wasiirka amuraha dibadda, wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga, wasiirka ganacsiga iyo la taliyaha wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya Mrs. Adna Aadan Ismaaciil oo kana mid ahayd xubnihii uu magacaabay madaxweynihii hore Soomaaliland Axmed Maxamuud Siilaanyo wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya. waxa kaloo jirta sida la helayo ila xogeedyo ku saabsan shirkaasi inkastoo aan si sax ah loo cadeyn inay ka mid tahay sidii loo qaybsan lahaa saami qaybsiga dhaqaalaha caalamku siiyo wixii la isku oran jiray Soomaaliya iyo macaamilooyin kale oo fara badan oo ay ka mid tahay inay Soomaaliland iyo Soomaaliya ka wada shaqeeyaan amuro fara badan oo iyagu markaasi labadoodaba khuseeya. dhanka kalena dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa la sheegay inuu isaga laftiisu uu wafdi ولس هجامين دونا إسلام مركانا أي سوجار يعني ساعدها صوص على جمهورية Djibouti. وحنا كم إذا هدينا وحكا حسنا حمناها أو هجامين أيام مدحوينها الصومالي رئيس الوزراء مدن حسن علي خير قدوميها برلمان كدل كاسي الصومالي مدن محمد مرسل الشيخ عثمان إيه وزير كيس الدستور وزير كيس أريمها جدها تنا أيه كبي دي إمام القبلية كبتلان وحنا كتل منطقين يتهاي مدن وحبسوا كلنا إن ما داب عن دور لقصين maamulka Puntland sidaasna waxa sheegay afhayeenka madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani afhayeen jaamacad Dabrani arintan ayuu Mareykanku dibadda ka riixaya sida loo arko isaga oo si dadban wakiil uga dhiganaya dawladda federaalka ee Itoobiya ee ra'iisul wasaare Axmed Abiy balse Soomaaliland oo ku kala aragti duwanaatay arintaasi oo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID uu isagu gabiyaanba gaashaanka ku dhuftay halka xisbiga kale ee wadani uu isagu ku ayiday dawladda inay dani ugu jirto inay shirkaasi gasho isla markaana wada hadal ay la furto Soomaaliya. suxufi Siyoore wararka Oodweyne Media Hargeysa.